كما كسو jeedo saacad wasiir inta badan waxa leeyahay kulmiye horta taageer jiray laakiin hadda waxaad moodaynay leeyahay qoliyo mucaaradka ah oo xisbiga wadan iyo kale leeyahay xaggaas u diga rogteen in Tambro isna loo magacaabay caasimadda Hargeysa gobolka Maluujeex isna wuxuu sheegay inuu xilka ka cudur dartay in adigu xisbi ahaan iyo dawlad ahaanba ma isleedahay wax weyn ba tarik ka saa horta ilaahay baa weyn oo wax tari kara laakiin anu kalsooni badan ma isku qabaa waa dad badan waa nation badan man ka dhasho deegaan fara badan dadkuna meel isku wada raaci karo waa meelaha la kala qaban kara laakiin waxaan isleeyahay anigu itaalkayga intaan isleeyahay inta wax badan baad ka dhaadhicin kartaa wax badan waad jiidan kartaa istow baa ka dhici doonta abdistaaro saacad wasiir kugu dheerayn maayo laakiin waxaan doonayaa ku weydiiyo dawladda Soomaaliland iyo xukuumadda dadka qaar baa la leeyahay xisbigaba ma iyagu madaxweynaha la dhamaysanayaan la shaqeynayaan sida uu dhowr jeer rag qaar ka dhawaajiyeen adiga ma ka dhaba inaad Musabbix iyo xisbiga kulmiye iyo aragtida madaxweyne Silaanyaba aad meel marnas bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweyne Silaanya horta cidnaba ku doorsan mayno ilaa raaliha ka noqdo wax si fiican uu hogaamiyo si wanaagsan uu wada waana ka ilaa heer wasiir iyo magacaabay waxaan ugu abaalgudo waan ag taaganay markuu waan siyaasadda ku shaqeeya Musabbixina waxaan la saaxiib dhow Musabbixi ilaa qaaxo laba nin oo saaxiib isu dhowaan haddaan cid siyaasi u taageeri lahaa Musabbix baan taageeraya horena waan u taageeray waxaad ka waraysaa waqtigii golaha dhexe hiilkii ugu badnaa raggii iskarab taagay baan ahay waqtiga golaha dhexe waliba challenge ku jiray madaxweynenimada uu ku soo baxay musharaxnimada waxna ahaa inaad ka warayso mooyaane raggii guusha uu maanta ku naaloonay Musabbix qayb ku lahaa tii iyo tu kamidana waan hayaa maanta inuu guuleysto kursiga ku fadhiisay Musabbix uu madaxweyne ka noqdo waa hamigayga koowaad